السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سلامي أخيات شرفت له xilli kastoo idiin tahay wacan wanaagsan waa mar kale muuqaal cusub maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay calaamadaha lagu ogaado dadka kartida alle ku manaystay muuqaalkaas oo faahfaahsan ayaan rabaa inaan soo gudbiyo la socod wanaagsan. dadka kartida leh ayaa lagu gartaa calaamado gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dadka aan kartida lahayn. 12 calaamadood haddii aad leedahay hambalyo waxaad ka mid tahay dadka kartida badan. 1. waqtigooda kuma lumiyaan calaacal. dadka kartida leh ma ahan kuwa meelaha calaacal la taagan oo ka eed sheegta dadka kale iyo waxyaabaha ilaahay u qoray, balse waa kuwa naftooda mas-uul ka noqda oo dareensan in noloshu aysan ahayn mid 100% ah. sidoo kale waqtigooda kuma dhumiyaan waxyaabaha aysan kontarooli karin. 2. xaqooda kama tanaasulaan. qofka kartida leh dadka kale uma ogolaado in ay maamulaan oo xaqiisa ku tuntaan. ma isticmaalaan ereyada sida qofkaasi ayaa waxaasi ugu qasbay iyo waxa la midka ah. waxay si xoogan u xakameeyaan dareenkooda waxayna aaminsan yihiin awoodooda. 3. kama xishoodaan isbeddelka. dadka kartida leh kama wahsadaan inay noloshoodu isbeddel ku sameeyaan oo ay sameeyaan hal abuur iyo waxa la midka ah. kama cabsadaan in ay iska daayaan dabeecadaha xumaanta leh oo ay raacaan wixii wanaagsan. 4. kama walwalaan qancinta dadka oo dhan. dadka kartida leh waxay dareensan yihiin in aysan macquul ahayn in dadka oo dhan la qanciyo. kama xishoodaan in haddii loo baahdo ay sameeyaan ay ka hortagaan fikradaha dadka maqaamka leh isla markaana ay ka hadlaan xaqa iyo cadaaladda. 5. kama leexdaan hawsha culus ama howlaha culus. dadka kartida leh waa kuwana fahansan culayska ay leeyihiin shaqooyinka culus, balse waa kuwa aan cabsi darteed u dhaafin howl wax ka qabasho u baahan. waxay sameeyaan qiimeyn ku saabsan hawsha taala waxayna ku dhaqaaqaan waxqabad iyagoo fahansan shaqadaasayto khasaaraha iyo faa'iidaha ka imaan karo. 6. mustaqbalka ayaa u muuqda. dadka qaar ayaa lagu yaqaanaa in ay ka hadlaan waayo iyo sidii xaaladdu ahaan jirtay, wax tagay ka sheekeeyo, balse dadka kartida leh kuma mashquulaan waqtigii hore maadaama wixii dhacay ay dhaceen oo aysan soo laabanaynin, balse waxay xooga saaraan mustaqbalka iyo sidii ay ugu guulaysan lahaayeen. 7. qaladaadka kuma celceliyaan. dadka kartida leh markii ay qalad ka dhaco waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan ama ay ka faa'iidaan sababaha keentay qaladka iyo sidii ay xalka ugu heli lahaayeen, balse ma ahan kuwa isla qaladkii ku celceliya. waxay qaataan mas-uuliyadda qaladaadka ka dhacay, way qirtaan qaladkooda, mas-uuliyadda markaasitana way qaataan. 8. kama xumaadaan horumarka dadka kale. waxay ku farxaan horumarka iyo guulaha dadka kale iyagoo isku daya in ay la mid noqdaan dadkaasi. kama xumaadaan oo ma xaasidaan dadka horumarka gaaray. waxay aqoonsan yihiin in horumarku lagu gaaro howlkarnimo islamarkaana laga doonayo dadaal dheeri ah. 9. kama niyad jabaan fashilka. qofka kartida leh kama niyad jabo in qorshihiisa markii uu fashil ku yimaado, qorshaha ama bajetka ama jadwalka u degsan kama niyad jabo hadduu fashil ku yimaado ee wuxuu isku dayaa inuu kor u qaado hawshiisa oo uu la yimaado fikrado kale oo uu ku gaari karo hadafkiisa. ma joojiyo isku dayga ilaa uu ka gaaro guul. 10. ma dhibsadaan keli ahaanta. dadka kartida leh ma dhibsadaan marka ay keliga yihiin, balse waxay u isticmaalaan waqtigaasi in ay si degan u fikiraan oo ay la yimaadaan fikrado cusub
iyagoo iyo qorshayaal muhiim ah. 11 waxay dareensan yihiin maqaamkooda. Dadka kartida leh waxay og yihiin maqaamka bani'aadamku leeyihiin dunidan. Waxay kaloo ogsan yihiin waxa dadka kale ay ka sheegayaan in aysan wax jira ahayn, balse waxay raadiyaan fursadaha ay kaga faa'iidaysan lahaayeen ama ay kaga faa'iidaystaan nimcooyinka Ilaahay ku manaystay oo siiyey. Iyo sidoo kale dadka wanaaga badan oo jecel in ay ka faa'iidaystaan fursadahooda ay ugu faa'iidaystaan. 12 ma filaan natiijo degdeg ah. Hawl kasta oo ay qabanayaan dadka kartida leh waxay og yihiin in wax kasta ay qaataan waqti, oo ma filaan in wax kasta daqiiqad gudaheeda ay ku dhammaanayaan oo horumar lagu gaari kara hal maalin keliya. Wax kasta waxay la sugaan waqtigooda, ma ahan dadka natiijada degdeg leh oo rajeeyo. Ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena. Fadlan hadda channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalka like noo saar. Waxaan ogahay in video. Wassalaamu calaykum.